guddida qandaraasyada qaranka ayaa soo bandhigay 9 mashruuc oo kala duwan shirkadaha soo codsaday inay ku tartamaan qandaraasyadaasi kala gedisan. Warreynba waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimayaasha guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka, Gaadiidka iyo Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga. Wasaaraddaasi oo ahaa kuwa qaar ka mid ah mashaariicdan loo fulinayay dhismayaasha laga dhisay gobolada dalka inay halka ka sii wadaan si ay fursad ugu helaan dhammaan muwaadiniinta reer Somaliland. shirkadaha kala duwan caafimaadku ay ku leedahay hal mashruuc oo ah kordhinta dhismaha cusbitaalka Burco oo aynu hadda u joognay furitaankii qandaraasyadii shirkadihii soo dalbaday. waxaan filayaa inuu ahaa ka ugu badan ee ay shirkaduhu soo dalbadeen. dhowr iyo 20 shirkadood ayaa soo dalbaday. shirkadii Ilaahay calaf ku siiyo ayaana helaysa, laakiin waxa muuqatay inay ahayd si transparent ah oo muuqata oo guddida qandaraasyadu ay ku dadaashay inay noqoto arrintaasi si muuqata oo waadix ah inay u tartamaan shirkaduhu ay u soo tartameen ka ku guuleystana ay u haniyaan si maxaan ku dhahdaa niyadsami sidoo kale. Geesta kale agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Jabarti Saale ayaa sheegay in shirkad walba wixii ay la timi lagu qiimeyn doono iyadoo wax ay xajirin in qandaraasyadii kala duwanaaye hore aan u baahinay 13 bisha maanta 19 ahna halkan hoolka shaqaalaha lagu furay. shirkad walba wixii nasiibkeeda ay ka qaado iyo wixii fikirkeeda uu lahaa iyo waxa uu kaga baxayana halka ay ku dhameystirtay gudoomiyaha guddida qandaraasyada uu shirkad walba wixii ay soo qortay halka lagu yeedhiyay. waxa weeye guddida qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland si xor iyo xalaal ah bay u kala saarayaan nin jeclaysi iyo shirkad jeclaysi midna ma wadaan. qandaraasku saasuu maanta inoogu soo xidhmay. go'aankina guddida qandaraasyada qaranka soo saari doona maalinta la soo saarana ee arbacadaana weynaga ku ballanay xafiiska guddida qandaraasyada qaranka. waxa weeye sidoo kale waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen. maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii 11aad 2018 waxaanu furnay 8 mashruuc oo aad u waaweyn. waxa ka soo qayb galay in ka badan 70 shirkadood. waxaanu leenahay waa sharaf qaranka u soo hoyatay, waa sharaf u soo hoyatay xukuumadda uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan halkan rabaa in aan sidii caadada ahayd halkan aan idinka ballan qaado haddaad tihiin shirkadaha in aad naga heli doontaan sinaan iyo cadaalad iyo transparency. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. gabagabadii qaar ka mid ah shirkadaha mashaariicdan soo tartamay ayaa waxay dareenkooda ka dhiibteen sida ay u arkaan mashaariicdan loo tartamayo. waxaan halkan uga mahad celinayaa guddida qandaraasyada qaranka oo runtii si fiican oo transparency oo cadaalada shirkadahan soo tartamay u feergareeyay ama u tartansiiyey. waxaana ka muuqataa runtii horumarka cadaaladda ah ee waddanka lagu horumarinayo oo aan shirkad jeclaysi iyo qof jeclaystoona meeshan ka jirin. nasiibkaygu wuxuuna siiyana raalli baanu ku nahay runtii. waana u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba guddida iyo dhammaan anoo ku hadlayaba magaca shirkadleyda halkan isugu timid, agaasimaha guud iyo guddoomiyaha iyo kulli dhammaan aad iyo aad shaqo wanaagsan. waxaan leenahay insha Allah anigoo ah guddoomiyaha shirkadda Taya Construction Company oo shirkadihii halkan tartamayay ee halkan fadhiya ilaa hadda hawsha ay sida ay u socoto hawsha qandaraaska furistiisa qaabka loo soo bandhigay sida ay aad iyo aad baan uga mahad celinaa guddida qandaraasyada. si wanaagsan bay u wadaan. insha Allah kala saaristana waxaanu rajaynaynaa in si wanaagsan oo cadaalad ku jirto. Maxamed Jaamac Mal wararka warbaahinta SBC Hargeysa.